ليوث المجد تنتظر على أبواب عزتنا، فثوب الخوف يا أمي طواه يرى قوتنا. ليوث المجد وعن وناكسن كسور دوادا برنامج كارا ودين كديارنا علاج كديب الرحمن. cilaajka diburaxmaan waxaa la aasaasay oo dhidibada loo taagay sanadii 2009 bishii 9 waxaana laga aasaasay gobolka Togdheer gaar ahaan magaala madaxdiisa Burco. cilaajkan diburaxmaan waxaa aasaasay oo ka howlgala sheekha caanka ah Sheekh Jamaal Wadaade. cilaajkan diburaxmaan adeegyada uu qabto bulshada waxaa kamid ah daaweynta isha, jinka, sixirka, xiiqda, bawaasiirta, xasaasiyadda, fayrasyada ku dhaca beerka iyo sifaynta ilmagaleenka. cilaajka diburaxmaan oo ku howlan daaweynta bulshada iyo la dagaalamka sixirka ayaa waxaa soo maray dhacdooyin fara badan oo khuseeya amuuraha sixirka sida midatan. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وحنا لكن قلبت كسر بندقينا إلهي إدم كيسة وحويان حول سحرة وحويان إن شاء الله قويس كم إذا بالشدة دقن قبل كتقدر مقالة برعو أيام إن شاء الله وكجول يسني أرنتاسو وحويان مدرس عتي sida ay noo sheegeen ilaa 6 sano oo dhowdhow iminka hawshaasi reerka ay ku socotay oo waxa weeyaan hawlo kala duwan iyo waxa weeyaan xanuuno kala duwan insha Allah ay soo mareen. marka insha Allah waxaynu soo bandhigi doonaa bal waxyaabii meesha aanu kala kulannay oo intii aanu quraanka wadnay ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aanu kalaamkiisa ku akhriyeynay annagu waxa weeyaan qalabka dhulka lagu eego biyaha lagu baadho iyo kuwa waxa weeyaan computeriska midna ma aan isticmaalin. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa iyo awoodiisa ayaan waxa weeyaan mucjiska uu quraanku leeyahay baan insha Allah isticmaalay kaasaan insha Allah galabta marka idin soo bandhigaynaa waxyaabo aad u fara badan oo qaraa'ib uu ka kooban yahay waxyaabahan ay soo sameeyeen insha Allah saaxiriintu. bismillaah insha Allah waa bilaabaynaa. waxa uu horeeyay geedkan oo aad aragtaan geedkan Soomaalidu waxay u taqaanaa kulli waxa weeyaan magaciisa Carabiga ah bay ugu yeedhaan oo shadaab baa la yiraahdaa luqada Carabiga, fajiinna waa la yiraahdaa. waa geed macruuf ah oo Soomaaliyana waxa weeyaan ka baxa dalalka waxa weeye carabtana waxa weeyaan ka baxa. insha Allah sixir bay ku soo sameeyeen waxyaabo insha Allah waxa weeye ku soo waxeeyeen. marka insha Allah Ilaahay idinkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awoodiisa waxa weeyaan nagu tusiyay ee waxa weeyaan ku qabtay baan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u mahadnaqaynaa. kaasa insha Allah u horeeya waxa ku xiga insha Allah geedkaas oo isna aragtaan geedkan isaga hadeer kulli anigu intaan ku dhex jiray waxa weeyaan hawlahan kulli geedka anigu maan arag geed imika de kulli mi ahaan aanu garanayo ama maaragtay deegaanka ka baxana u garan maayo maaha. kuwa waxa weeye wax lagu daweeyana kama mid aha. geedkaas baa isaguna waxa weeyaan soo labeeya oo waxa weeyaan ay wax ku soo sameeyeen oo laba qaybood ka kooban. waxa weeye mid waa ka aan idin tusay ka labaadna waxa weeyaan waa ka marka waa geed kulli dheecaan sameynaya. marka geedkaas baa isaguna waxa weeyaan laba ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo qabtay baynu u mahadnaqaynaa. waxa soo raacda masaabiirta labada qaybood waa masaabiir isku xidhan oo waxa weeyaan laba qaybood waxa weeyaan ka samaysan waa qayb yar iyo qayb weyn. waxyaabaha waxa weeyaan ay masaabiirtu leedahay waxa kamid ah inay waxa weeyaan kala jeedjeedaan. masaabiirtu af iyo dab ay leedahay saa la socotaan. marka waxa weeyaan afkooda iyo dawooyinkoodu way kala jeedjeedaan waa kuwa kala jeedjeeda way kala jeedjeediyeen. marka insha Allah waxa weeyaan waynu furfuraynaa uqadka iyo waxyaabaha ay xidhxidheen waynu furfuraynaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xawlkiisa iyo quwadiisa ayaynu waxa weeyaan insha Allah ku furaynaa. bismillaah baynu ku furaynaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala magaciisa ayaa waxa weeyaan wax walba ka weyn. qaybtaas isku xidhan iyagu waa 4 mid oo inaga insha Allah kala daadinay. halkana qaybta buuran baa ku jirta oo iyagu dhinac u wada jeeda. kuwii hore way kala jeedeen laakiin kuwani dhinac bay waxa weeyaan u wada jeedaan iyagu. walowba ay si gaar ah u xidhxidhan yihiin oo waxa weeyaan qaybba si loo xidhay iyagoo isku duuban haddana waxa weeyaan qaybba si ayaa waxa weeye xadhiga loogu xidhay. iyagana insha Allah waa furaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idamkiisa. waana qaybtii saddexaad ee sixirka kamid ah oo waxa weeyaan insha Allah aan maaragtay ayaynu maraynaa qaybtii saddexaad. qaybta afraad iyaguna waa masaabiir kale gaar u xidhan mid gaar u taagan iyo mid gaar u jeeda
iyo inta kale oo iyaguna waxa weeye meel wada jeeda mid gaara oo waxa weeyaan meel gaara ku xulan oo ka taagan iyo waxa weeyaan mid meel gaara u jeeda iyo inta kale oo meel gaara wada jeeda insha Allah iyagana waa furfuraynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala xawlkiisa iyo quwadiisa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu waxa weeyaan ku furfuraynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu buriyo sixirka ay soo xidheen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa buriyo waana tusay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhagartooda waxa weeyaan ay yihiin wax liita baynu insha Allah tusayna ilaahay idinkiisa waxa weeyaan qaybtaan insha Allah waan furfuray waxa soo raacay waxa weeye waa alaab kale halkan iyaduna taala sida waxa weeyaan loo yaqaan milixda waxa weeye cuntada lagu cuno soo yar dhawe hoos ku soo yar foorari milixdaas oo waxa weeyaan aad waliba u fara badan sidaad aragtaan weeye iyaduna waa milix waa taas waa milixda weeye waxa weeyaan waa milix oo waxa weeyaan iyagu ay dana gaara ka lahaayeen ay wax ku akhriyeen balaasim iyo shayaadiin iyo balaayo waxa weeyaan ay ku akhriyeen marka insha Allah waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa ku akhriyayna a'uudu billahi as-samii'il 'aliim minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim yarkadi hada wali in bahadhay bahali in bahadhay ma wada dhamayno hay qaybtaasi waa inta halkan waxa ku jira iyaguna laba qaybood oo kale qaybta aragtaan qaybta aragtaan waxa weeyaan waa xalwad shayaadiintii waxa weeyaan markay ka qaylinayeen reerka ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa aan ku akhrinay qolkooda hurdada ayaa la soo dhigay xalwada aragtaan iyadoo cusub baa la soo dhigay oo sidaa loo soo xidhay kadib markaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa aanu saaray waxay ku qaylinayeen oo ku baroorinayeen inay ugu tala galeen caruurta qoyska inay ku laayaan oo ay cunaan oo waxa weeyaan dabeetana waxa weeyaan ay ku madhaan laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa waxa weeye waxna dila wax la nooleeya ilaahay subxaanahu wa ta'ala gacantiisa ayaa jasha dadku waxa weeyaan ku jirtaayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala cidii uu ugu tala galay iyo waqtigeedii buu qof waliba waxa weeyaan qaadanaya taana saasay ugu tala galeen halkan waxa ku jira isaguna bariis waa kuntimood sida aragtaan way badan yihiin halkan bariis baa ku jira oo waxa weeyaan aan iyagana ma aragtay aan ka soo qaadnay qolka waxa weeyaan hurdada ay keeneen reerka kulli timo yar iyo waxna way ku dhex jiraan iyo waxyaabo yar oo kale oo fara badan oo wax isku dhex yaacsan laakiin asalkiisu waxa weeyaan waa bariiska weeye aragtaan waa kaas marka insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa dhagartiisii iyo waxa weeyaan waxyaabihii marka kanina waa bariis iyo waxyaabo kale fara badan oo waxa weeyaan ay isku dardareen oo waxa weeyaan ay isu keeneen weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa dhagartoodii baaba kuwa ka yeelay marka insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa ayaynu waxa weeyaan ku akhriyi doonaa insha Allah wixii waa far badan yihiin waa kuwan halkan yaalaan waa dhowr qaybood weeye marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa ayaynu waxa weeyaan ku akhriyi doonaa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما ينفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. waxaan baaq u diraynaa bulshada waxa weeyaan ku dhaqan goboladan waxa weeye Soomaaliland waxa weeyaan insha Allah ilaahay idinkiisa waxaan dhawaan iclaaminay waxa weeyaan xamlada la dagaalanka waxa weeye sixirka iyo saaxiriinta insha Allah waxaan isu taagnay inaan waxa weeye dabar goyno oo la dagaalano inta awoodayada ah dadka waxa weeyaan waxa sameeynaya ee bulshada waxa weeyaan dhibaatada ku haya aan qarsoonayn ee waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu muujiyay dhagartoodii iyo waxyaabaha ay wadeen marka insha Allah baaqa waxa weeyaan aan u diraynaa bulshada waxa weeyaan inay waxa weeyaan insha Allah burco gobolka Togdheer baan iminka ku sugannahay insha Allah bil baan halka ka hawlgeli doonaa ilaahay idinkiisa xarumo waxa weeyaan wax ku oolana dadka waa uga furay insha Allah waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartiina waa loogu shaqayn doonaa in yaro insha Allah loogu talagalay in adeeg lagu fuliyo goobta ayuun baan insha Allah ilaahay idinkiisa dadka laga qaadi doonaa marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinkiisa waxaan leenahay bulshada waxa weeyaan muslimiinta gobolkan ku dhaqan inay waxa weeyaan xarunta iska soo xaadiriyaan oo waxa weeyaan ay yimaadaan si waxa weeyaan insha Allah ilaahay idinkiisa ay noogu fududaato in waxa weey la dabar gooyo waxyaabaha ay saaxiriintu ay soo maleegeen taasi waxa weeyaan waa qodobka labaad insha Allah gobolada Soomaaliland oo dhan waa gaari doonaa gobol walba insha Allah waqti baan siin doonaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinkiisa u gaara oo waxa weeyaan insha Allah ay ku tala galaan baan insha Allah siin doonaa dibna insha Allah waa ka soo iclaamin doonaa marka ilaahay idinkiisa qodobka labaad waxaan la hadlayaa saaxiriinta soo sameysay waxaan khibtum wa khasirtum waxa weeyaan insha Allah waxaan idin sheegaynaa inay khasaarowdeen oo dhib idin ku dhacay mid aakhiriye mid adduunba waxa weeyaan idin ku dhacay oo waxa weeyaan waxyaabaha aad soo sameyseen maanta aanu sidaa waxa weeye farahayaga ugu fadhayno liidashada liidataan halkaas waxa weeyaan gaarsiisan tahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduun iyo aakhiraba sidoo sheegay iyo ku hoogteen oo waxa weeyaan adduunna waxa maydaan taransan oo waxa weeye dhagartii ay soo dhigteen waa taas aanu maanta waxa weeye si ay u burburinayno waxaanu ku burburinaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalaamkiisa iyo anagu xarigiisa haysano oo isaga waxa weeyaan cogsanayna marka idinkuna sheedin baa cogsantihiin oo waxa weeyaan aan maaragtay awoodiina koobada ka dhigateen anaguna ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan ka dhiganay bal marka dagaalka ka guuleysta waxa weeyaan waynu arki doonaa insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala idinkiisa gobolka Togdheerna waa idinka dabar goyn doonaa iyo meel kasta waxa weeyaan ay Soomaaliya degto cid kasta insha Allah marka ka caawinaysa xanuunadaas ama ay hore u asiibeen insha Allah ilaahay idinkiisa nagala soo xiriiraan lambarada waxa weeyaan shaashada ku qoran meel kasta insha Allah ay joogaan ilaahay idinkiisa waxaan ugu talagalay adeegga inaan wada gaarsiino bulshada insha Allah anagoo waxa weeyaan aan adduun ku raadsanayn laakiin dadka waxa weeyaan dhibaatadaas ay haysato waxa weey ugu talagalay inaan u gargaarno insha Allah ilaahay idinkiisa idinka dabar goyn doona wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaajkan Diburaxmaan oo muddo 9 sano ka howlgalayay gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco ayaa sanadu markay ahayd 2018 bishii tobnaad 11keedii ilaajku waxa uu bilaabay safar shaqo kuwaasi oo ku aadi doono dhammaan gobolada Soomaaliland safaradaasi oo looga gol leeyahay sidii ilaajku dhammaan ummadda muslimiinta ee xanuunsan ee ku nool gobolada Soomaaliland loogu tagi lahaa goboladooda safarkii ugu horeeyay ilaajku bilaabay waxa uu ka bilaabay gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada madaxdiisa Berbera وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله سيدا أن شاقني وحويا حرمت Diburaxmaan oo ka howlgalaysa waxweeyaan gobolka Saaxil magaalada madaxdiisa Berbera إن شاء الله mudana waxweeyaan hawsha ka waday taasoo waxweeyaan ugu talagalay dadka إن شاء الله gobolada ku nool inaan waxweey ku soo booqano oo qof walba gurigiisa waxweeyaan xanuunkiisa إن شاء الله aan ku eegno ilaahay idinkiisa halkan إن شاء الله maanta waxaan ku soo bandhigaynaa bukaanadii xarunta la soo xidhiidhay iyo maanta waxa weeyaan isbedelka insha Allah ay dareemayaan ilaahay idinkiisa shamis salaabaan shire waxa weeyaan xarunta iyadoo garbaal la hayo ayaa runtii la keenay oo waxa weeyaan ay dhacdhacayso ayaa halkan laygu keenay xanuunkaana inuu muddo soo hayay markii aan wareystay bay ii sheegtay iminkana ilaahay subxaanahu wa ta'ala agaheeda ayuu waxa weeyaan igu timaadaa oo quraankii uu ku soo doonataa bal marka insha Allah sidii wax xanuunsanaysay waxa iminka dareemayso insha Allah iyada inoo sheegi doonta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي عنا هاي مكان الحمد لله رب العالمين وحن حنوسنا مدة 17 سنة 17 سنة إلى شفر بدن والدي
wax isbedelay bogsiin yarday mooyaane wax badan kumaan arag 3 bilood ka bacdi markaan joogo xanuunka halkii iga soo abaaraa wixii iga hadlayna 17 sano wali iga may hadal imankii haatana waan fiicanahay anigoo tabcaana lay keenay muddada 17 sano aba iska tabcaana oo waxaan ku wada 5 cisho baad maalin dhulkiisa alla waa lay keenay marka 7 cishaan maraya 2 cisho hore waa la ila socday maantana ما شاء الله عافمات كيجيو نمعدن كهلي إلهي بامهات استله ما يوان كي كراي لكن ده تبعان بنسكها قفته أنا حسن كرنا هذا وحدك قاعد أنا كسوق قاعد كرنا شقيسن كرينين أود لقى هيستو شركة إلكتروني بعد مودي يستيقع معها قاعد تمدك توكله شركة واحد مودي سنة وسا وحيد حياة عيان ري تضبيط 8 سنة ريوين بانها اللي يعني دوحها قف سكت تبعانه إما كشنتها بينا كدم لي habeen ka sii dambeeya indhaaba ma kala qaado oo shaqadii kar waaya indha qaraar baan leeyahay toosi karilaan baan dirqa lagu kiciya awal lama seexan kar jirin alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iskale iyo wadaadka ilaahay noo soo diray alxamdulillah rabbil alamin waxaan ugu bogaadinayaa dadka deegaanka ila mid ah sida deegaan xanuunsanayo kale waxaan xanuunsanaya in sheekh ayaga u yimaadaan oo dawa bismillah dawa deegaanku 17 sano baan xanuunsanayba shanta habeena u dambeeyana caafimaadkan ilaahay baa ogday isaga subxaanahu wa ta'aala waxa la igu daweeyay quraan waxa la igu daweeyay dhoro qaar la cabayo qaar la marsanayo intaba waa la igu daweeyay yaro Abdullaahi baa la yiraahdaa anigoo 15 sano waan xanuunsanay 15 sano dhakhtar aanan tagin iyo farmasi aanan tagin adduunka kuma yaalo imika halkan waxaan joogay ilaa 10 cisho ayaa halkan wadaadkan aan la joogay 10 cisho wadaadkan la joogay cunada ma cuni jirin waan cunaa hurdada ma seexan jirin waan seexdaa wax alla fudaydka waxaan ku jirku guban jiray imika ima gubto cunada waan cunaa waan seexdaa waan caafimaad qabaa ilaa adiis adduunka meel aan soo marin aan dhakhtar u tagay ma jirin ده قف ولا شيء بركيسو هلاي إلهي خير هسيه ده يسقون بشين برا نقضي كل النام ومدنا وحنا لا نقف كيس ده يدا وتبعاني بيول بس عمري شيخ هو يماده يا شين برك إلهي بحيه الشجرة ونود عيننا ده وحنا لا إلهي بيصادك حسنات كاكو قدر شنو فردوسك وجاي وايد وحنا يالون بوجا هي ما تصدقون معي هم هو أنا قاعد تنشر ما أنت من أساس تقول بدك شلو قبل بدك تبعان نفط بدأ دقيقة والله يقول تخيل المركز تصامر نفط ما نعي قرقس كفريسته ده مركز أنت صام كدر إياه ده واحد لا يهاي ويحب بكسر ده يلا إلهي عافمات هرت ضدك هو الصي إلهي بعافمات كبحية ويحب بكنا الله شافية وحنصل لا يهاي وذات كاس اللي يبادد ويحب إلهي كشافية وكشافية waxaan insha Allah halkan uga mahad celinayaa waxa weeyaan runtii Dr. Jaamac oo u sababa shaqadan waxa weey maanta aan umada u hayno inuu waxa weey nagu kaalmeeyo runtii nooga soocan waxa weeyaan bulshada inteeda kale iyo waxa weeyaan dhaqaatiirta gobolka joogta waxa weeyaan si gaar ah iga mudan inaan waxa weey u mahad celiyo runtii muddaan xaruntiisa waxa weey ku shaqeynayay si weyn ay gacan qabtay dadka waxa weeyaan xanuunsanaya xanuunada cilaajka iyo waxyaabaha leh runtii markuu arko inay dawadii dhakhtarku waxba ka tiri weeday waa nin daacada bulshada u daacada runtii gacantu soo qabtaa oo waxa weeyaan wuu ii keenaa runtii dabeetana waxa weeyaan markii xanuunkii dhakhtarka laga waayo xanuunkii kale ayaa qofka laga helaa waa nin baan odhan karaa bulshadiisa insha Allah u daacada oo gobolka waxa weeyaan si daacada dadka ugu adeega marka insha Allah isagana waxa weey kelmadiisa insha Allah siinayna xarunta insha Allah bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وقارن هرت إلهي وما هذا له وحن بلغين يا الشيخ إن شاء الله خوش مهم كهو بالشدة وهيو مركي عن دراسات كسميني دتك بوكان كاه نوع إيمانية dawadii chemicalka ahayd ama maartay dhaqaatiirtu qoraysay ama laabkii wixii aanu kala qoonsanay dadka aanu kala qoonsanay in fara badan waxaanu ku daynay in aanu lagu dabiibo diinta sidaasaanu u keenay branchigan aanu uga howlgalay sheekha khayr Allah siiye in badan buu isaguna u dadaalay oo uu u dhibirsan yahay dadka bukaanka ah isagoo u diirnaxay oo aan ahayn sida meelaha qaar waxa weeyaan dad fara badan baa ilaahay caafimaad ka siiyay
inkastoo ilaahay caafimaadka bixiyo haddana asbaab baa jirta aad baan ugu hambalyaynaynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa inuu miisaankiisa xasanaadka u saaro jisaana ka siiyo dadkana waxaan kula talinaynaa dawada ilaahay baa bixiya laakiin aad iyo aad baa dib uraxmaan looga gartay wax fara badan oo caafimaada qofku isagoo dawada kala qaadanaya in diinta laysku dabiiba waa sharci iyadaana mudan iyadaa lambarwana qofka islaamka ahi waa inuu ku kalsoonaadaa taa qur-aan baa la saaraya 24 saac maaha qur-aanku lacag maaha xoogaa yaroo dawooyinahoo dee dhir waa la samayn karaa qofka lacag waa lagaga qaadi karaa laakiin waxaa fara badan asxaanfalka iyo samafalka uu wado sheekh jaamac khayr xasanaad allah siiyo aad baanu ugu hambalyaynaynaa dadkan waxaanu leenahay diinta fiiro gaar ah loo yeesho iyadaa shifaa iyadaa dawaa iyadaa ka mudan kemikaalka dadku isticmaalayo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cilaajka dib uraxmaan uu ku guda jira safaradii uu ku marayay gobolada somalilan ayaa safarkiisii labaad waxa uu ku aaday gobolka gabiley gaar ahaan magaalada wajaale وصحبه وسلم إن شاء الله هو شيخ جامع وداد ويان كهو قال حرمتا وحويان علاج الضب الرحمن لتداوي بالقرآن والسنة والعشاء وحان إن شاء الله مدة أفدنا وحويان إن شاء الله أدقيو وحويان إن شاء الله رميستران إلهي إذن كيسا وبالشدة إذا وحويان أنكو قرب قلينو waxaanu insha Allah dhawaan bilownay mudooyinka dhowr bilood laga joogo socdaal aan ku marayno waxa weeyaan gobolada Somaliland taas oo aan ugu talagalay inaan bulshadayda waxa weeye ku caawino oo waxa weeyaan dadku xanuuno fara badan bay ka cabanayaan dad badan oo waxa weeyaan khuraafaadlayaal iyo kuwa aan u danaynaynin oo ka danaysanayana markaanu aragnay oo fara badan ayaa waxaanu go'aansanay inaanu anagu ummadda u socdaalo inta iyagu socdaali lahaayeen oo anagu insha Allah aanu iyaga u danayno oo goobahooda iyo guryahooda iyo meelaha ay jiifaan aanu waxa weeye ugu tagno si aan waxa weeye uga baahi tiro xanuunada iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan ee kala duwan maanta waxaan joognaa magaalada Wajaale oo aan soo gabagabeynay waxa weeye hawshii aan ka haynay xarunta ay ka furay muddo waxa weeye imka 2 bilood iyo 6 casho maanta ku beegan bay waxa weeye ka furan tahay Wajaale inta waxa weeyaan dadku ku dhow ayaanu waxa weeye 2 bilood aan qaabilay oo xanuuno kala duwan waxa weeye ka cabanaya siyaabo kala duwan oo cabanaya meel kala duwan waxa weeye ka cabanaya runtii dhamaantood waxa weeyaan maanta waan ku guuleysanay baan oran karaa boqolkiiba 99 waa ku guuleysanay marka dhimanna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo dhameystiro taasina karti iyo wax gaar ah aanu la gaar lahayn ma aha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waxa weeyaan mahad oo dhan iska leh dawada inoo geliyay quraankiisa iyo kalaamkiisa anagu waxaan xambaarsanahay oo dadkan ku daweynaynaa oo waxa weeyaan ummadda aan ka dhaadhicinayna aqeedahan oo aaminsanayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisu inuu yahay dawo laakiin anaga nafaaya inaani dawo ahayn baan ummadda waxa weeye u sheegaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa iyo kalaamkiisa in waxa weeye la aamino oo qofku uu ku calal fayoobaado waayo qofku markuu soo daaro intaasoo dhakhtar baan soo tagay buu ka oranaya abashadiisii buu kaaga soo waramaya dhaqaale badan inuu ka soo baxay buu kaaga waramaya maxaa uu diiday bulshadu waayo maxay u bilaabi laayihiin oo marka hore qofku uu ugu dhaqaaqi laayay Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu xal ka raadsado xanuunkiisa uu dawo wax weeye uga baaro maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka waxa uu ku tilmaamay ashifaa'u taam wax weeyaan shifo dhammaystiran النبي عليه الصلاة والسلام مركه وحنوصله أما محمد أي قبضته وحوي إلهي الكلام كيس أي وحوي يسكت دمون شلو شركيس أنتو كعميسة كتفه أي شركيس مريض شري محمد أصلا وحوي يوم كبر يشرتي إلا حنوكي سكرات أحاديث وحوي ترى بدن يا عائشة وحوي يسوع ورينيسو والنبي عليه الصلاة والسلام مركي سكرات وحوي وكويمي إن وحوي القرآن حتى مركو سوس كنت فكر ويا أنت كعمية كتفته أما كعمية ساي كتفته وحوي النبي عليه الصلاة والسلام شركيسة وحوي أمرنا لي مركا مضى وحنا إن شاء الله أبو باقينا وحوي الله سبحانه وتعالى كتاب سواد رسمية هدي كان ضدك كوا أخريا يلا جه رأينا الله كتاب سوى كتو زي هاي وحيابها خرافاتك هي شركياتك هي عقيدة الضرة
iyo cabsi darro haddii waxa weeyaan aanay ku jirin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uu ku kalsoon yahay taqwad iyo caqiide saxana uu haysto waxa weeyaan ummadda ilaahay kitaabkiisa waa ku daweyn karaa waxaa kaloo laga rabaa qofka doonaya inuu ilaahay kitaabkiisa isku daweeyo marka hore inuu qofkaas yaqiin dhammaystiran waxa weeye uu la yimaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa isagoo aaminsan inuu ku bogsanayo uu isku akhriyo markaas baa waxa weeye uu ku caafimaadaya waxa dawadu qofka u jirtaa intuu qur'aanka u jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkiisa intuu u jiro ayaa waxa weeye dawaduna u jirtaaba insha allah bulshada aan u sheegaynaa waxaan kaloo halkan fariin uga diri lahaa qolo waxa weeye walaaladaya oo culimo isku sheega oo waxa weeyaan waxyaabo aad u qaraa'iba waxa weeyaan samaynaya waxaan ugu baaqi lahaa anigoo u nasteexaynaya oo aanay iga ahayn inaan xumaynayo iyo inaan radiyayo iyo inaan waxa weeye boos ka riixanayo midna aanay iga ahayn oo nasteexo waxa weeye lilaahi ah ayaan halkan maanta u marinaya culimadaas waxa weeyaan waxay samaynayaan hablihii oo dhacsan oo qaaqaawan oo wax ka dhex qaylinayaan oo xanuun ka dhex buuqayo ayay waxa weeye kamarada ka duuqayaan waxaan leeyahay culimada ilaahay ka baqa oo hablaha muslimiinta ah ee Soomaaliyeed sharaftooda ku ciyaaraysaan ilaahay uga baqo oo sharafta hablaha waxa weeyaan in la ilaaliyo oo waxa weeyaan habluhu way ilaashan yihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ilaaliyay boos weyn iyo makaano sare ayaa ilaahay dhigay waxa weeyaan istihzaa ku samaynaysan ka daayay oo ku dul sheekaynaysan iyagoo xanuunsanaya aareedin halkaasaa laga hayay oo halkaasaa xanuunaysay oo xanuunkaasaa hayay oo sidanay noqotaa war ilaahay ka cabsada oo markii qofka caafimaado ee bogsado ee aad daweysaan ee shayaadiinta ka saartaan waxa weeyaan dadka u soo bandhiga oo waxa weeye tusiya wanaagga quraanka iyo diintu ay leedahay laakiin qofkii oo sakaraad oo xanuunsanayo serious oo waxa weeyaan xaaladiisu aanay asturnayn oo mariyii waxa weeyaan ay ka waxaysan yihiin ina soo dubtaan oo soo bandhigtaan aad iyo aad baa looga fiican yahay aad iyo aad baan arrintaa waxa weeye uga xumahay culimadaana waxaan insha Allah ku boorin lahaa inay arrintaa qaataan oo waxa weeyaan insha Allah ilaahay idinkiisa ay ka dhabeeyaan ilaahayna ay uga baqaan bulshadana insha Allah waxaan weysiin lahayn inaan insha Allah ka howl bilaabi doono magaalada insha Allah boorame ilaahay idinkiisa xaruntii wajaalan insha Allah soo gabagabeynay maanta waxa weeyaan insha Allah Arbacaa bishu waxa weeye 6 ay tahay bishii waxa weeye saddexaad 2018 2019 waxa weeyaan bilowgoodii baan insha Allah ku jiraa xarunta waxa weeye boorame baan insha Allah ka hawlgeli doonaa waqtiyada insha Allah soo socda marka insha Allah bulshada dhamaanteed ilaahay subxaanahu wa tacaala inta caafimaadka qabta inuu ilaahay u siyaadiyo in ilaahay weydiinayna inta xanuunsanaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka qaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaajku muddadii uu ka howlgelayay gobolka Gabiley gaar ahaan magaalada Wajaale markii uu soo dhameystiray howlihii shaqo ee uu joogay ilaajku wuxuu soo bandhigay dadkii Allah ku shifo yeelay daawadii ilaajka la soo waafajiyay khayrkan faraha badan ee la isku ilaahay baa maanta iska leh la soo waafajiyay khayrkan faraha badan ee la isku anaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan caafimaad dhammaystiran aan ka helo intii xanuunkan nahaya haddii ilaahay yidhaahdo uu hayana inaa caafimaad ilaahay uu ka siiyo ayaan ku rajoweynahay sidaa darteed anigu maalinkaan mid iyo maanta isku mid maahi waa isbeddel badan baan dareemay isbeddelkaasna insha allahu tacaala waxaan u rajaynayaa dadka aniga la mida sidaan u xanuunsanayo iyaguna inay dareemaan aniguna caafimaad badan baan dareemaya insha allah sidaa darteed dadka moog aan ogeyn insha allah inay ka soo qayb galaan oo isdaaweeyaan oo diinta quraanka kariimka iyo macnaha ay isku daweeyaan ayaan ugu baaqayaa insha Allah tacaala ka war qaabka khuraafaadka ahaa aad soo martayna dadka u sheegay inay iska ilaaliyaan aanay ku kadsoomin insha Allah tacaala waxyaabihii hore soo dhaafnay wixii khayr ama wixii shar ee soo dhaafnay insha Allah tacaala inaan macnaha khayr ka shaqeyno insha Allah inta cimrigeega ka hadhay oo xumaantana iska dhaafno khayrkana aan ku dadaalo dadkana macnaha wanaaga aan la jeclaano xumaantana aan la necmaano ayaan ku rajooynaa insha Allah xanuunka ka qaba waxaan ku wargelinayaa dadka xanuunkayga noocan oo kala qaba waayo jirkooda dhammaanay xanuunaya sidaa darteed dadka ay jirka ka cabanaya meel walba ka cabanaya in daawadeeda halkan lagu hayo oo halkan la iska daaweyn karo oo degdeg loo soo gaaro ayaan dadka ogeysiinaya insha Allah tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم tani waxa weeye waa ruqiya sharciya oo ay diyaarisay waxa weeyaan insha Allah xarunta dib ruxmaan
إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس أيام وحوي كختنا قدام ميني إن شاء الله قف كستو وحوي حرونتي مادة مدة وقعت مدان قادم إن شاء الله وحوي ويقادن كرانا وسيننا إن شاء الله ومدان أديك أنا قلت لك إن شاء الله بالشدة وحوي إن شاء الله يدك حنوسنية مركا إن شاء الله 3 قيبات أيا وحوي كوبينهين إن شاء الله حرونت الدب الرحمن إن شاء الله يدين ديارسي وإلهي سبحانه وتعالى بيو لغو أخري وحوي كتاب كيسي أو وحوي لما يسترن إن شاء الله إلهي يدين كيسا حرونت الدب الرحمن إن شاء الله كيلي دونتان قف كستو وحوي إن شاء الله نوي معدنا إن شاء الله واسين دوننا إلهي يدين كيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته cilaajka dib uraxmaan oo sii wata safaradii uu ku marayay gobolada Somaliland ayaa safarkiisii saddexaad waxa uu ku aaday gobolka Awdal gaar ahaan magaala madaxdiisa Boorama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله وحن كسرنا هاي مقالة بورمي سعودالكي إن شاء الله أن وقر قارني وحوي بالشدة إن شاء الله لا دبان وحوي حنونا وحوي كلا دوان سيدا إيش تشينكا سحركا iyo xanuuno kale oo waxweeye fara badan ba insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitabkiisa iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo dhirta dabiiciga ayaa waxweeye insha Allah aan ku xalinayna Ilaahay idinkiisa marka insha Allah bulshada wixii hore insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan buu nala qabtay oo nagu garab galay taana waxweeyaan waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadaalka aanu dadaalino iyo daacadnimada aanu ugu shaqeynayno Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda waxweeyaan maaragtay iyo mas'uuliyadda waxweeyaan qaadnay sida waxweeye habsimada leh aan u gudanayno ayaa waxweeye keenaysa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka quraanki si daacadnimo qofkii aan ugu akhrino Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku caafiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad maaragtay uu soo mariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa waxyaabo runtii aad iyo aad u mucjisaada ayaa halkan ka dhacay xaruntan Booromay dad badan baa la keenay qaar waxweeye indhala oo aan waxba arkaynin baa ku jiray qaar hadalka laga haysto aan hadlaynin baa ku jiray intubana Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta waa u furay oo wax weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa caafiyay ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim marka waxaan muxtar xasiban leeyahay marka waxaan sanay xanuunka madaxaas u ahaa moogtay madaxiina markaan ka eegday ee quraanka loo akhriyay waan caafimaaday si wanaagsanna waan caafimaaday sheekhana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa jannada Allah ha geeyo بدأ سنة واحد منها 4 سنة موته مركز قاعد بنو عافماضي يقولوا أوكي مركز شيخ أنا وحنا قلت عينا وحنا قال ما إنه إلى هاي جنة فردوس إلى هاي نجيو آمين سافر بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ورحمة عبد الله قبض عن ضلي وحيجا بقت مدة 7 سنة عافماض كي جميل البوانو جاي إن شاء الله تضوى أسبوع بين مقال كان أنا كعشر كقصية عافماض الحمد لله إلهي بقى مهدله وحان uga mahad celinaya sheekha quraanka kariimka iyo dirtiisaba noogu xaasibay alxamdulillah ilaahay waxaan weydiinayaa sheekhana cimri dheer iyo caafimaad annagana ilaahay caafimaad sareecana naga siiyo salaam calaykum xanuunada noocan waxaan leeyahay ilaahay intuu ugu soo dhiibay oo u siyaadiyo isaga calaykum magacaygu waa Hodan Qaali Xuseen in badan baan xanuunsanayay lugaha jilbaha inta madaxa oo dhan kirfaha inta way wada xanuunayeen dhexda isku wareeg way wada xanuunaysay alxamdulillah markaan sheekhana imiday aad baan u caafimaaday markaan socdo waan daali jiray imika ma daalo meeshaan doonaan ordaa alxamdulillah rabbil caalamiin sheekhana ilaahay ha ka jisaaysiiyo alxamdulillah dawladda way noo socotaa quraankii waan isku akhrinaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay jisaalahu khayr jisaalahu ka siiyo sheekh in badan dhakhtarka waan tagay meel walba waan tagay haddana xanuunkayga wala kaniin baa soo qaata wala xaaga quraanka iyo dhirteena nasiyo sheekh baan ku daway alxamdulillah waxaan sanay waxay xanuunayay madaxa iyo dhinaca bidixda waa roonahay imika intaan sheekh quraanka igu akhriyay jisaalahu khayr yahay badsaaysiyo waan salaamaya walaal maxaan ka imid Djibouti marka inankaygu maxaan dhaayay dhowr sano xanuunka qabo ku soo noqnoqonayay imika isagoo halkan 5 bilood xanuunka qabaa waxaan dhaayay sida geel u galgalmaysanay maanta alxamdulillah hadalkii uu soo celinaya cuntada yar qaadanaya inta kale ilaahay baan ka sugayaa ka dhiman na ilaahay baan ka sugayaa imika 5 bilood xanuunka qabaa waxaan dhaayay imika wali xanuunkiisu wali caafimaadkiisu sraac maaha
laakiin sidii de maalinta sheekha ugu keenay uu ka roon yahay cuntadu qaadanaya wareegii badnaan uu ka yaroon yahay insha Allah inta kalena ilaahay baan la kaashanaynaa iyo sheekheena ilaahayna ka jasaaysiyo ilaahay umadana waxaan leeyahay wixii walaaliheen xanuunsanaya inay ka qayb qaataan sheekheena ilaahay ka jasaaysiyo jannada firdawsana ciimaan ku duceynaa annagana ilaahay caafimaad hanagu siiyo walaal sidii assalaamu calaykum waxaa la dhahaa Mustafa Cabdullaahi Qaalib wallahi wuxuu ilaa 6 bilood buu xanuunsanay imika xaaladiisu way iska fiican tahay sheekhan inta uu keenay aad iyo aad buu fiican yahay maxay ahayd imika dee caafimaad buu hayaa inta kalena dee ilaahay baa dee caafin sheekhana waan hambalyeynaa waanu duceynaa insha Allah xanuunkiisu wallahi maxay ahayd uu dhacay maxay ahayd dhareer baa ka socday xanuunkiisu aad buu farbadnaa marka maxay ahayd in 6 bilood aduu sanad wax yarna uu iska xanuunsanay marka intaan xalkan kana xaaladiisu aad iyo aad buu fiicantay sheekhana ilaahay jisaaya ka siiranay muddakan ya bulshada in wixii bukana ilaahay daa caafiya waxaan leenahay halkan ku soo xidha insha Allah sallallahu alayhi maxamed salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh magacaygu waa Madiina Ismaaciil Cali waan xanuunsanay muddo ilaa 8 sano marka meeshan ini ayaan xanuunkii adu baysta baan soo ladnaanay markii hore waxaan ka fiicnaaday markii dambana ilaa waan iska fiicnay balguun baa yara xanuunay aad buu iskaga bedeleen xitaa waxaan dareemayaa inaa wadno ay xanuun jiraan ka bogsaday culays weyn baa iga dhaadhacay minka aadna waan wanaagsanahay xanuuntana aad baan dawo fiican uga helay ilaahay ka jasaaysiyo sheekha aad iyo aad baan ugu fiicnaan aniga dad badan oo wareystayba waan ku wada fiicnaanay isagana khayr baan u rajaynayaa aadna waan u salaamayaa sheekha lacagtiisuna aad bay yartoo bee qiimo aad u jaban buu lagu daweeyay ilaahayna dawo naga siiyay soo dhibida alla way dawadu ilaahay isagu noogu soo dhiibay aniga dad kale badan baan iska fiicnaan alxamdulillah rabbil caalamiin uu ku mahadsan yahay sheekhuna horta quraan wax ka dawo badan ma jiro rasuulku sallallahu alayhi wasallam quraan uu wax ku daweyn jiray iyo dhirta dabiiciga ah dhakhtar waxay leeyihiin jireen badii awalkii hore dawaduna waa soo dhiibida alla ama dhakhtar ama quraan ilaahay inuu ugu soo dhiibin weeyay laakiin quraanka ugu dawo badan wax la isku daweeyo bulshada dhammaan waxaan ugu baaqay dadka quraanka waxa kale ka aaminsan inuu quraanku ugu dawo badan yahay wax la isku daweeyana quraan baa ugu fiican waxaad bixisaanada shirkina maaha dambina kaaga ma imanayo ajirna uu kugu jira isla markaas xanuunkiina waad kaga ladnaanaysaa kulleeyna qofku markuu bukoodo sakaraado u dambeynta quraan saarun baad marka dhakhtar wax kasta laga daalo quraan saarun baa la quraan saarun baa lagu sabootiyaa iyo xitaa marka nafta ka baxaysa marka waxa u dambeeya ee la inagu daweeyaa waa quraan dhakhtar iyo waxa intaanad aadin quraan isku daweeyaan leeyahay bulshada dhammaanba islaamka waana maadsanti بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد halkan waxaan ka sheegayaa aniga oo xaali barxad xadiya in 6 sano aan xanuunsanayay oon iska dhulya lahaa oon waxba ka qabsan karayn oon jiifiya lahaa oo sheekhaayna Allah khayr Allah siiye hargeysa ka yimiday ee sheedar ku yaala ilaahay dakii oo igu soo dhiibay dawadayda ahaa ayuu ilaahay shimbir iga dhigay alxamdulillah rabbil caalamiin Allah ka jasaaysiye wallahi waqti kasto ma xaafadida jooga ama aan ag joogaba waan u duceeyaa sheekha wax weyn buu ii qabtay yaana sheekh jaamac wadaad meel kastuu joogaba ilaaha Allah ka jasaaysiye cidii haweenaa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam ya sheekh jaamac iyo inta Allah almaasha hadii aan waramo waan xanuunsanayay ilaa 2019 ka waan xanuunsanayay ilaahay sheekh jaamac baa igu soo dhiibay waan fiicanahay alxamdulillah ilaahay baa iga fiican dawo wanaagsan baan ka helay waan dhacdhacayay madaxa iyo mijaha intaba dhulka la iga qaadayay waan fiicanahay alxamdulillah ilaahay baan u hadiyay insha Allah ilaahay ka jisaaysiyo janna farduusan ugu bishaareynay ilaahay inta kale walaalaha ay xanuunsanaysina ha ku soo dhawaato sheekh jaamac wadaad aad baan u fiicanahay alxamdulillah rabbil caalamiin shukri lillah ilaahay baa igu caafiyay oo igu soo dhiibay hadda waxaan jeclayn inuu noo fadhiyo laakiin ummadii kale ayaa u baahan ee walaalaha ayaa ahayd ilaahay waxaan ka rajaynaynaa si nabad qabta inuu noogu soo noqdo
insha allah sheekh cajaawadaad waan wada salaamayaa iyaga iyo bulshadiisa rabbil caalamiin anigoo madiina suge ah oo maxay hayday ilaa 2 sano xanuunsanayay sheekhaas ilaahay noo soo roday waan ku caafimaadnay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ka jisaysiiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu jannada firdawsa ilaahay ka waraabiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku nool Boorama ayaan salaamayaa sheekh jaamac wadaad الله إلهي هكذا سايسية إسلام تيد واحد حنوسنا سي صدّن سنة أي حنوسنا سي ويسكر هذا هيد واللغة هذول كم لغة هذا هي إلهي عافمات بكسية الحمد لله رب العالمين عافمات إلهي بهاي إلهي بوجسور ديبي شيخ جامع ولاد أيوه إلهي بوجسور ديبي وعافماتي بقول كيما بقول ويرد يساعي مكا راشين كي يوحول بيجي كريم سا وعافماتي إن شاء الله شيخ وحن وجود عيننا إنه إلهي سجرا كجساء السيو أنت برشلة نخبر مرة وحن وجود عيننا وحن فرنا إلى الشيخ ويما ده وحي حنوصن إلهي عافمات بوجود ديبي إن شاء الله شيخ وتجيا وحن إلهي كبرنا أنا كوا عافمات قمنا يسوع عافمات قلا إنه إلهي برشلة بورما وكسر عليو أيام إلهي كرتيننا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام أمرك ورئيسها وأنا حسين محمد سهلة ونحن سنايي انت أبا الله يقهستي ما أنت نواس عفوا بنا عقول الكبير كثير جرا مركز الشيخ نوسي جوجو ونجيدها أيضا ما يصنع دوين كان مكان استعماله أيها فعلا اللي مركز بنا كسور بينه وأيو حنون كسوبه ده عفمات كانوا صورته تيا أدي أدبش خامانيا إنه نوسي جوجو أو ضدك بكان كل دالن دوين كان نختار كدالنا أو سي وضو دوين كيس إلهنا ولا قرب قرو دود ويا حاجة عليك تمادها قفنا دود ما هي إلهي بهايا لكن ميمد وحويان إن قرآن قف لو آخره تكيل أتيم صوت دورتنا وحويان إن قف قرآن لو آخره أو قرآن كركيس لو آخره دوين كان جيده يدرتنا أو استعماله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaajka dib uraxmaan oo ka howlgalo sheekha caanka ee sheekh jaamac wadaad ayaa markii uu soo dhameeyay howlihii shaqeeye ku waday gobolka awdal gaar ahaan magaalada madaxdiisa Boorama ayaa waxa uu nasiiyay warbixin kooban taas oo khusaysa ilaajka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حويا شيخ جامع وداد magacayga waxaa la yiraahdaa jaamac xuseen maxamuud nuur aalan nuur sheekh jaamac wadaad ayaan wax weeye ku magac dheerahay waxaan gacanta ku hayaa hawl muhiima oo aan bulshada ama dadka muslimiinta ah aan wax weeye u hayo hawshaas waxa weeye muddo aan ka soo shaqaynayay oo waxa weeye aan ku soo dhex jiray hawshaas waxa weeyaan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa in waxa weeye la isku daweeyo oo runtii waxa weeyaan shay aad iyo aad waxa weeye u muhiima markii aan arkay baahiyo badan oo waxa weeyaan bulshadu ay qabto cabashooyin badan iyo xanuuno badan iyo waxa weeyaan dad aan aqoon badan u lahayn majaalkan waxa weeye isku qaaday iyo kuwo kale oo khuraafaadlayaal ah oo ummadda waxa weeyaan adduunkii ka dhameeyay oo waxa weeyaan maaragtay hantidoodii iyo caqiidadoodii iyo maalkoodii inta balumiyay ayaan insha Allah goostay inaan hawshan anigu isu taago runtii waxay igu qaadatay muddo inaan u galo waxbarasho ku saabsan hawshan iyo nidaamkeeda iyo waxa weeye buxuudteedii waxa weeyaan 3 sano ayay igu qaadatay inaan diyaariyo 3 sano kadib waxa weeyaan insha Allah waan bilaabay hawlgalladii baan bilaabay inaan dadka waxa weeye quraanka ku akhriyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku daweeyo dawooyinka dabiiciga ah oo waxa weeye runtii aan aqoon dheer u leeyahay iyo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sida la isugu daweeyo oo iyadana aqoon buuxda waxa weeye aan u leeyahay taasoo waxa weeye iyaduna dhowr jaanib noqonaysa jaanib laga doonayo qofkan wax daweynaya nafsad ahaantiisa ku saabsan
inuu waxa weeye qofku dhiso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay iyo shuruudihii laga rabay uu isagu marka hore buuxiyo jaanibka labaadna waxa weeyaan waxay ku xidhantay qofka la daweynayo oo isaguna waxa weeye u baahan ruuxdiisa in loo diyaariyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inuu waxa weeye cilaaqaad la yeesho oo waxa weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kalsooni ku qabo inuu waxa weeye ku caafimaadayo waxyaabaha khuraafaadka iyo shirkiyaadka iyo waxyaabaha maaragtay shakiga laabtiisa ku jirana waxa weeye laga saaro marka la helo laba yaqiinood yaqiin kan qofka dadka ku akhriyaya qur'aanka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku toosan yahay yaqiinna ku qabo inuu ilaahay ku daweynayo iyo shay laga doonayo isagana qofkan waxa weeyaan maaragtay la daweynayo oo isaguna inuu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku kalsoonaado yaqiin buuxdana uu ku qabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkan kaga faydayo haddii intaas ay iswaafaqdo runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku caafiyaya cid kasta oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala dawo waxa weeye u soo doonata oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa isku daweysa bulshadu maanta waxa weeyaan waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan bay la dhiban tahay waxyaabaha runtii aan bulshada u hayno aan maaragtay iminka majaalkeeda wadno waxaa ka mid inaan wacyigelin iyo duruus inaan dadka waxa weeye siino taasoo waxa weeye si toosa iyaduna u socota muddana waxa weeye soconaysay duruustaasoo waxa weeyaan ilaa 100 darsi waxa weeyaan ka kooban 100kaa darsi waxay u qaybsan yihiin 22 xalaqo oo ka mid waxaan kaga hadlaynay waxa weeye sixirka 10kii u horeeyay ayaa iminka baxay oo ka hadlaya waxa weeye sixirka inta kale labada qaybood kale waxay u kala qaybsan yihiin isha iyo dhibaatooyinkeeda iyo jinka iyo waxa weeyaan maaragtay awoodihiisu intay isagana gaarsiisan yihiin iyo dhibaatada uu bulshada ku hayo runtii waxa weeyaan waxyaabaha duruustan ku dhex jira waxaa ka mid tasxiixul caqaa'id qofka muslimka waxa weeyaan caqiidadiisa in la saxo oo waxa weeyaan waxyaabo badan oo runtii khuraafaada ama shirkiyaadba noqon kara mararka qaarkood ayaa bulshadeena maanta ku dhex jira oo waxa weeye runtii ay aaminsan yihiin waqti dheerna ay ku soo dhaqmayeen awowyaashooda ay ka soo gaadheen runtii dabeetana ay u qaateen wax ka mida diinta oo u baahan waxa weeye in laga sifeeyo oo laga dhaadhiciyo runtii taasina waqti bay qaadanaysaa in waxa weeye maaragtay lagu bixiyo xaruntu waxa weeyaan waxay shaqaynaysay iminka muddo 12 sano bay shaqaynaysay 12 sano waxa weeye runtii hawlo aad iyo aad u fara badan ayaan waxa weeye qabanay meelo kala duwan waxa weeyaan waan ka qabanay xarunta waxa weeyaan xarumaheedu way fara badan yihiin xarunteeda guud ee ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Burco gobolka Togdheer magaalo madaxdiisa ayay ku taalaa waxa weeyaan qaybta soo raacda waxa weeyaan Hargeysa ayay ku taalaa laascaanood way ka howlgashay xaruntu kadalika waxa weeye waxay ka howlgashay magaalada waxa weeye Caynaba waxay ka howlgashay maaragtay Ceergaabo waxay ka howlgashay Wajaale waxay ka howlgashay oo iminka aan hawsheeda gacanta ku haynaa waxa weeye magaalada Boorame meelo kale oo badan oo runtii noo qorshaysanna waxa weeyaan way jiraan iminka 6 bilood ee ugu dambeeyay bishii 11aad 11keedii waxaan bilownay safar aan waxa weeye ku marayno gobolada oo aan uga faa'iideynayno bulshada waxa weeye soo kici kari weyday socodkii iyo maaragtay safarkiina uu dib ku noqday inaan anagu meelahooda ugu tagno oo soo booqano oo xanuunadooda iyo amraadda iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan runtii aan barahooda iyo guryahooda iyo beydadkooda insha Allah aan anagu ugu tagno oo xarunta waxa weeye maaragtay aan u geyno oo aan maaragtay guryahooda iyo maaragtay meelaha ay joogaan iyo goboladooda aan ugu soo adeegno runtii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waan ugu garab galay iminkana gabagaba ayay waxa weeye taagan tahay oo waxa weeyaan insha Allah xaruntii maaragtay iminka Boorame baan ku soo gabagabaynaynaa Hargeysa ayaa waxa weeyaan runtii iyaduna noo qorshaysnayd oo xaruntii waxa weeye labaad ay ku taalo waqtiga ayaa noo saamixi waayay bishii Ramadaanna way soo galaysaa insha Allah Hargeysana bacda Ramadaan baan insha Allah Ilaahay idinkiisa aan ka hawlgali doonaa ummadda waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba waxaan ugu baaqaynaa oo ku celcelinaynaa in badan oo horena waxa weeye aan sheegnay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa uu daweeyo inuu yahay dawo waxa weeye dhameystiran inuu yahay waxa weeye hanuun inuu yahay waxa weeye nuur Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisu kaas oo waxa weeye ifinaya laabaha iyo wajiyada waxa weeye dadka xambaarsan iyo cidda waxa weeye ku dhaqanta ee waxa weeyaan maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa xambaarta ee waxa weeye aaminta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamay wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin
ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisu inuu yahay dawo iyo hanuun iyo waxa weeye naxariis saddexdaas shay baa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa waxa weeyaan dhexdiisa aad ka helaysaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu deeqaya marka aad la timaado ee waxa weeye aad qaadato runtii waxa weeyaan waxyaabo intaan qur-aanka wadnay cajaa'iba oo aad iyo aad waxa weeye u qaraa'iba oo fara badan ayaa waxa weeye runtii na soo maray waxaa ka mid a waxa weeyaan reero badan oo waxa weeye la sixray oo guryahoodii runtii geli kari waayey qaarkood waxa weeye guryihii ay danaboobeen oo sidii wax korontada maaragtay ay haysato oo kale noqday shirkadii laydharka loo yeedhay injineeradii guryaha dhisay loo yeedhay dabeetana markii dambe la xaqiijiyey waxaan guriga ka jiraa inaanu leydh sax ahayn haddana qofkii markuu gurigii taabto ama is yidhahdo albaabka fur khaasatan dadkii guriga deganaa weliba waxa weeyaan maaragtay la tuurayo oo leydhkii maaragtay uu tuurayo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi burcaayay ka dhacday ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu guuleeyey oo waa nagu garab galay sixir baanu asalkiisu ahaa oo markaan dadkii qur-aanka ku akrinay baa waxa weeyaan ay ka dhex qayliyeen shayaadiintii iyo waxyaabihii la adeegsanayey runtii sixirkan iminka aad iyo aad buu ugu soo batay bulshada oo waxa weeyaan maaragtay meelo aad iyo aad runtii u fara badan buu ka jiraa waana xanuunada ugu faraha badan leh maanta ugu faafitaanka badan weeyaan waa waxyaabaha la rabo ummadda maaragtay inay insha allahu lagala dagaalamo oo waxa weeyaan insha allah laga daweeyo oo ilaahay idamkiisa waxa weeyaan maaragtay dee si gaaban iyo si dheerba waxa weeyaan ummadda loogu sheego ummadduna ilaahay subxaana wa tacaala hadday kitaabkiisa qaadato kitaabkan dhexdiisa ay wax walba ummaddu ka helaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala maa faradanaa fi lkitaabi min shay ba alle subxaana wa tacaala uu leeyahay kitaabkan dhexdiisa waxba kagamaanaan tegin nebigu calayhi salaatu wasalaam taxsiinaad fara badan iyo adkaar ayuu inoo jideeyey saacad kastoo qofku uu dhaqaaqayo ama meel kastoo uu ka baxayo hadduu guriga ka baxayo iyo hadduu suuqa qabanayo iyo hadduu masaajidka gelayo hadduu suuliga gelayo hadduu seexanayo hadduu soo tooso dhammaan waxa weeyaan adkaarahaas iyo adkaaru sabaax walmasaa oo aad u muhiima inay dadku ilaashadaan ayaa waxa weeyaan runtii aad iyo aad waxa weeye loogu baahan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay calaykum bishifaa'iin alcasalu waalqur'aan waxaan idinku ogahay labada dawada waa malabka iyo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa war ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisu wuxuu xalliyaa runtii amraad aad iyo aad u fara badan oo runtii dadka marka loo sheego waxa weeyaan maaragtay aanay qaadan karin oo aanay ka degaynin baa runtii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisan waxa weeyaan ku xallinay maanta oo ilaahay subxaana wa tacaala aan ku mahadinaynaa waxa weeye ku faani mayno laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baan uga mahadnaqaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu noo fududeeyey kitaabkiisana ilaahay subxaana wa tacaala markii aan ka run sheegnay ilaahay subxaana wa tacaala mucjisaadkii ku dugnaana uuna tusay ilaahay subxaana wa tacaala runtii waxyaabaha la taaban karo maanta aan xusi karo waxaa ka mid a waxa weeyaan inan iyadana waxa weeyaan hadalkii lagu xidhay runtii muddo 6 bilooda ayaa waxa weeye ay aamusnayd 6daa bilood waxa weeye dhakhtarro badan baa la mariyey sida ardasababo oo kale hargeyso oo kale dhakhaatiir badan oo waxa weeyaan maaragtay neerfa baa loo geeyey waxay sheegeen xanuunkeedu inuu neerfa yahay goobo kaloo waxa weeyaan runtii qur-aanka laftiisa lagu daweeyo inay geeyeen way ii sheegeen waxa weeyaan waanu imi waan eegay magaalada burcay ka dhacday inantu waxa weeyaan iskuulka waxa weeye sheekh ibraahim bay dhiganaysay form 4 bay ahayd waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii baan ku akhriyey markaan qur-aankii ku akhriyey runtii waxa weeye way qaylisoo way dhawaaqday shayaadiintii ku jirtay baa ka dhawaaqday waxa weeyaan wuxuu sheegay inuu nin ahaa ay la hadli weyday dabeetana uu bakoorad uu garabka dabadiisa kaga dhuftay sixir waxa weeye loogu soo sameeyey waxa weeye runtii reerkoodu way la wareereen oo muddo 6 bilooda ayay inantu warqad qoraysay oo faraha ay ku hadlaysay sida waxa weeye dadka dhagoolayaalka ilaahay subxaana wa tacaala mahadi waxa ammaanta inay waxa weeye bulshadeeda ku dhex jirto iyadoo hadlaysa oo sheekaynaysa oo waxa weeye maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala xanuunkiina uu ka qaaday waxyaabaha runtii cajaa'ibka ah isoo maray intii waxa weeyaan majaalkan ku jiray waxaa ka mid ah waxa weeyaan nin baa ii yimi maalmaha ka mid ah wuxuu iga codsaday weliba nin dalka dibadiisa ka yimi buu ahaa wuxuu iga codsaday inaan xaafadiisa aan qur'aan ugu akhriyo markii aan qur'aankii ku akhriyey waxa weeyaan waxaa ka soo baxay meeshii qoftii dumarka ahayd ka qayliyey jimankaasoo waxa weeye sheeganaya gabadhanba inay iyagu qabaan ninkuna muddo 7 sano abuu reerka ka maqnaa jimankani waxay sheegteen in waxa weeyaan maaragtay ay xaaskan iyadu ay qabaan oo ay xaaskoodii tahay
waana nooc ka mid ah jinka oo soo weeraray ibnu aadamka oo loo yaqaano jinnul caashiq baa la yidhaahdaa runtii jacayl buu ku yimaadaa inuu qofkan iska jeclaado oo waxa weeyaan dabeetana maaragtay ula tacaamulo ayuu doonaa runtii markii arrintaas ay dhacday waxa weeyaan arrintaas ay timi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii maaragtay aan ku akhrinay ee qur-aankii ilaahay subxaana wa tacaala aan ku akhrinay inantii way ladnaatay hase yeeshee waxa weeyaan arrinta igu la yaabka badnayd waxay ahayd ninkiibaa bogsan waayey waayo ninkani isagu waxa weeyaan wuxuu arkay wax reerkiisii soo weeraray laakiin aanu arkaynin runtii waa arrin aad iyo aad u qariiba oo u la yaab badan le weeyaan dabeetana waxa weeyaan wuxuunbuu niyeystay mar kastoo ay dhaqaaqdo iyo mar kastoo maaragtay haddii ilaahay ka dhigayo inuu inantii tuhmo oo yidhaahdo waxa weeyaan wixii bay maaragtay la tacaamulaysaa oo ay doonaysaa marka maalin labaad buu igu soo noqday isagoo weliba aad u xanaaqsan oo aad u kacsan buu igu soo noqday wuxuu igu yidhi sheekh weli arrintii way jirtaa maxaad dareentay baan ku yidhi oo wuxuu yidhi maya way jirtaa arrintii waxaan doonayaa inaad mar labaad ila xaqiijiso inantii gurigiiba waan ka kaxeeyo guri kalaan geeyey dabeetana waan raacay waan u ixsaan sameeyey inaan meeshaa kula soo eego ayaan goostay inantii waxa weeyaan waan ka weynay runtii waxa weeyaan gurigii waxaa naloo sheegay inay gurigii ku noqotay hore uu ka soo kaxeeyey sababtay ugu noqotayna waxay adhi bay meesha ku haysatay isaguna nin yar kacsan buu noqday oo markii dee uu yar xanaaqay unbuu meesha ka soo kaxeeyey adhigiibun bay istiri wuxuu geeyey xasuusata dabeetana markii intaana la yidhi ninkii runtii aad iyo aad buu xanaaqay wuxuunu yidhi sheekh arrintan inantu iyadaa ka raaliya oo waxa weeyaan arrintan iyadaa doonaysa wixii bay qabato maaragtay ay meeshii la qabato inantii waan u tagnay qur-aan baan ku akhrinay waxba waxa weeyaan isbedela ma yeelan markan dambe runtii isagii baan u sheegnay inuu isdejiyo oo maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay u toobad keeno inantana waxa weeyaan wixii shaydaan u ahaa shaydaankiina ilaahay subxaana wa tacaala uu ka kaxeeyey marka runtii arrintaasina waa arrin aad iyo aad waxa weeye iyaduna u layaab badan arrimaha kale runtii na soo maray iyaguna waxa weeye maaragtay la taaban karo waxaa ka mid a inan isagana waxa weeyaan maaragtay ay ka soconayeen biyaha raganimada waxaa loo geeyey inanka xanuun baa ku dhacay markii hore nin dadkan sixoroolayaalka ee ummadda dhibaya ayaa loogu geeyey inuu daweeyo dabeetana dhiig buu ugu maydhay haragna wuu ku duubay xoolaad intaa wixii ka dambeeyey waktigiisii markii ay gaadhay shayaadiintii baa weerar ku soo qaaday inankii biyihii raganimada iska furmay hadduu fadhiyo iyo hadduu socdo iyo hadduu jiifo intaba waxa weeyaan inay oba yeelan waayaan iska socdaan waftii runtii qof aad u mariila buu noqday oo waxa weeyaan dhulyaala wajaala ayaan kula kulmay waa lay keenay waxa weeyaan qur-aankii baan ku akhriyey shayaadiintii baa ka qaylisay oo sheegtay inay waxan iyagu maaragtay ay ku samaynayaan runtii dhakhtaradiina way u xal waayeen inankaa oo wax lagu xaliyo waa la waayey ilaahay subxaana wa tacaala waa ka kaxeeyey isagoo caafimaad qaba ilaa iminkana waxa weeye wayla soo xidhiidhaa ilaahay subxaana wa tacaala waa caafiyey oo maaragtay arrintaa ilaahay subxaana wa tacaala waa ka kor qaaday marka xaruntu waxa weeyaan ummadda adeega fiican bay insha allahu u haysaa bulshada iyadana waxa weeyaan insha allah mar walba waxaan jecel lahay inay waxa weeye horumarto oo wanaagga iyo khayrka ay waxa weeye horumariyaan inay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ay weyneeyaan oo isku daweeyaan oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa in laysku xukumo iyo in laysku daweeyo iyo in lagu dhaqmo intaba waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala waa intuu inoogu soo dejiyey weeyaan acmaasha aan qabanayno o dhanna ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inaynu uga saldhigno oo qofku intaanu waxyaabahan khuraafaadkan iyo waxyaabahan inaanu ku dhaqaaqin oo waxa weeyaan bal hortay uu yidhahdo waxaan diintu maxay ka qabtaa haddaanu isagu xataa garanayn culimada inuu weydiiyo fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka u aqoonta iyo cilmiga le inaad weydiisaan oo maaragtay intay qofki markuu wixii galo maaragtay muddo ku jiro ee ka soo caal waayo kugu soo noqonaya markaasuu odhanaya waxaasaan shiikh u tegi oo waxaasaan soo maray runtii marka hore iska hubiyaan bulshada leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa usoo wada noqda ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa waa inagu filan yahay man lam yakfihi alqur'aanu falaa kafaahu allah waman lam yashfihi alqur'aanu falaa shafaahu allah ninkii waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku filaan waayo dee wax ku filanaba ma jirayaan ninkii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa maaragtay uu daweyn waayana dee dawo waxa weeyaan heli maayo kaas runtii waxa weeyaan juhdi badan baan ummadda aan diyaar ula nahay inaan waxa weeye gelino oo runtii aan ula dadaalo waxa weeyaan xarunta cid kastoo waxa weeye cabanaysa xaruntu runtii waxa weeyaan dadka
wixii wax haystana way ka qaadaa kii aan haysanna waxa weeyaan waanu maaragtay wixii itaalka iyaga ah inkastoo waxa weeyaan ashkhaas aanu nahay oo dee awoodda iyaduna ay iska gaaban tahay wixii itaalka iyaga ah waan garab gallaa dadka waxa weeye baahan ee jilicsan inaan waxa weeye wax taro oo maaragtay aan daweyno oo aan ka farxino oo sidaa dadka kale maaragtay iyaguna caafimaadka u doonanayaan dhaqaalahooda ugu doonanayaan inaan iyagana maaragtay kaga farxino insha Allah waan jecelahay ummadda maaragtay aad iyo aad baan runtii adeegana maaragtay meel kasta aanu tagno waanu ka fulinaa in kasta iyo cadad kastaba hal leegaato wixii itaalka iyaga waxa weeyaan insha Allah waanu dhaqaajinaa insha Allah waxaan ku soo koobayaa magaalada Burco insha Allah Ilaahay idamkiisa bisha Ramadaan baan insha Allah Ilaahay idamkiisa aan ka hawlgali doonaa xaruntii waxa weeyaan dhimirka oo waxa weeyaan Burco ka furayd oo dadka loogu talagalay xagga maskaxda ah iyadana waxa weeye dib habeyn weyn baan insha Allah ku sameeynay qaybo fara badan baan ku soo kordhinay insha Allah Ilaahay idamkiisa baad Ramadaan bisha Ramadaan baynu insha Allah ka hawlgali doonaa magaalada Burco oo insha Allah Ilaahay idamkiisa waxa weeyaan maaragtay aan hawshii ka qaban doonaa muddo dheer aan ka soo maqnaa bisha Ramadaan ba insha Allah Ilaahay idamkiisa inoo ahaan doontaa reer Booromina insha Allah waxaan leeyahay waa insha Allah shaqadii way soo gabagaboobaysaa insha Allah inta bisha ka hadhay ayaa waxa weeye insha Allah inoo hadhay insha Allah inta ayaynu waxa weeye ku saafmeeraynaa barnaamijkeena. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.